بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاذ جوكتان الله ود لا dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurkaas safareenka ee coronavirus iyo cudurro kaleba waa maalinimo sabti ah 12 bisha 12aad 2020 cudurka coronavirus waa fidaya dhinaca kalena talaaladii ayaa la sheegayaa waa laba arrimood oo markaasi aan dhagaha u wada roonayn oo mid u roon tahay midna aanay u roonayn marka laga hadlayo coronavirus xaalku ma qumana marka laga hadlayo talaalkiisana xaalku aad buu u quman yahay markaynu haddaba eegno wadamada Yurub ayaa waxa aad moodaa in ay aad iyo aad u liitaan wadamada qaar oo horay u wanaagsanaa marka la fiiriyo dadaaladooda iyo xakamaynta dhinaca cudurka coronavirus-ka waddanka Jarmalka markaynu fiirino waxa uu kamid ahaa wadamadii sida aadka u wajahay una la tacaalay marka la fiiriyo sanadka horaantiisii markii cudurku uu ka bilowday guud ahaanba adduunyada laakiin mowjada labaad ayaad moodaa inay ka xoog badatay maamulayaasha waddankaasi Jarmalka iyo dadaalada ay wadeen oo ah in la kala fogaado sankii afkan in la xirto taasoo keentay in la arkiyo tiro aad u fara badan oo xagga soo ridashada maalin walba iyo xagga dhimashada waddanka Jarmalka marka la fiiriyo saacadihii ugu dambeeyay dadka cudurka laga arkay waa 29,000 iyo waliba 875 ruux iyadoo dadka u dhintan ay gaarayaan 585 qof taasoo marka loo arko inay tahay tiro aad u badan Jarmalka maalmihii ugu dambeeyay dad 500 ka badan maalin walba in la arkayay arrintan ayaa waxaa loo sababeynayaa iyadoo dadka Jarmalku inta badan ay qaarkood sameeyeen mudaharaadyo sida magaalooyinka Berlin iyo magaalooyin kale oo diidan yihiin in la kala fogaado sankii afka la xirto dadkana guryaha in lagu xanibo taasina ay keentay dayacaada dadku ay muujinayaan iyo awaamirta oo aysan raacaynin inay keentay in tirada dadku ay bataan dhinaca kale waxaa la sheegayaa in maamulayaasha dhinaca Jarmalka ee goboladu aanay dhageysanin hadallada mar walba ay soo tabiso ra'iisul wasaaradda waddankaasi Jarmalka Angela Merkel taasna loo sababeeyay dhagacdaygaasi inuu keenay in tiradu ay aad u badato wasiirka dhinaca dhaqaalaha ugu qaabilsan waddanka Jarmalka oo lagu magacaabo Peter Altmaier ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto oo waliba qorshihii la sameeyay mid ka sii badan la sameeyo haddii la doonayo tirooyinkan faraha badan in laga hortago Angela Merkel oo baarlamaanka la hadlaysa waxa ay sheegtay lama eegan karo lama daawan karo 500 dad ka badan maalin walba Jarmalka inay ka dhintaan ee waa in la qaadaa tallaabooyin aad u adag waxa la filayay horaanta iyo inta aan la gaarinba ee Christmaska in markaasi Jarmalku ay qafiifiyaan arrimo badan laakiin hadda taasi uma muuqato oo waxay u muuqanaysaa xaaladdu inaanay wanaagsanayn oo ay tahay tallaabo adag in ay dawladda Jarmalku ay qaadato si markaas looga badbaado mowjada labaad ee khatarta ah ee iyadoo faraha ka sii baxaysa ama ka baxday meelaha qaar ee waddankaasi Jarmalka marka la fiiriyo wadamada kale ee reer Yurub awaamiir kala duwan ayaa soo baxaysa waddanka Holland oo kale nin isagu garsoore sare ah oo dhinaca maxkamadda ayaa waxa uu sheegay in ciidda marka la gaaro xagga Christmaska ama haddii kale sanadka cusub ee 2021 habeenka uu dhalanayo inaan la ogolayn dadka waddankaasi Holland u dhashay in ay isticmaalaan amaba ay shidaan markaasi qoryaha iyo rashka la doonayo in loo dabaaldego ee markaasi holaca laga keenayo arrintaas ayaa waxa uu ninka garsooraha ay ku tilmaamay cid kasta oo isku dayda inay rashkaas samaysaa in ay noqon doonto mid mudata marka ugu horeysa ilaa iyo 100 euro oo ganaaxa kadibna sharciga la tiigsan doono waa digniin loo jeedinayo dhammaan dadka taas oo la diidan yahay in la isu soo dhawaado la isku qamaamo markaasina dhibaato xoog leh ay dhacdo waddankaasi Holland waddanka Holland waxa uu kamid yahay wadamada sida aadka uga badbaaday oo tiro badan aanay ka dhiman mowjadiisii koowaad laakiin iminka sida Yurubta kale laga deeranayo xaaladdu sida ay tahay waddanka la yiraahdo Czech Republic oo kamid ah dalalka sida aadka cudurku ugu faafay ayaa waxa ay sheegeen xawli dheeraad ah inuu ku socdo faafitaanka cudurka ee waddanka Czech Republic taas oo ay sheegeen maamulayaashooda sare inay maalinta Isniinta ee soo socota ay ka fadhiisanayaan go'aanka madambayso adagna ay ka qaadanayaan guud ahaanba sidii dalka loo xanibi lahaa tiradan faraha badan ee soo ridashada iyo dhimashadana markaas loo hor istaagi lahaa dib loo hor istaagi karayo Cyprus ayaa waxaa la sheegay in la xiray dukaamada waaweyn iyo shoobinada baararka iyo waliba restaurantiyada cuntada laga cuno tan iyo inta laga gaariyo 31 bisha December 2020 taas oo loola jeedo reer Cyprus in laga ilaaliyo dadku inay isu soo dhawaadaan oo cudurka markaas ay isqabadsiiyaan Russia marka la fiiriyo waxa uu kamid yahay wadamada sida aadka ah cudurku soo ridashada ay u badan tahay laakiin tirada dhimashada aanay u dhaweyn 24 saac ugu dambeeyay dalka Russia waxa laga arkay tiro dhimasho oo gaaraysa 613 ruux taasoo markaas tirada guud ee Russia cudurka coronavirus-ka uga dhimatay ka dhigaysa 45,893 ruux marka daba la fiiriyo dhinaca kale UK iyo waliba ee Russia waxay wadaagayaan arrimo la xiriira dhinaca talaalka
sharikadda lagu magacaabo AstraZeneca iyo weliba jaamacadda Oxford ayaa waxa ay diyaarinayeen tallaalka la doonayo in wax looga qabto cudurka coronaviruska oo eegitaankii ugu dambeeyay lagu jiro ogolaanshihiisuna uu dhow yahay. sharikadda kale ee lagu magacaabo Sputnik V oo ah Ruushiyada ugu qaabilsan dhinaca tallaalka ayaa iyaduna waxa ay tahay mid maamulayaasheeda iyo saynisyahannadeedu ay iskaashanayaan AstraZeneca iyo Oxford iyagoo u arka labada tallaal inay wax badan isaga mid yihiin oo haddii la isku daro ay wax weyn tari karaan xagga difaaca iyo ka hortagga dadka cudurka inay isqabadsiiyaan. tallaalkan Sputnik V sharikadda lagu magacaabo ee Ruushia ayaa waxa ay bilowday dhammaadkii toddobaadkii hore in lagu bilaabay dhaqaatiirta Ruushiyaanka, macallimiinta Ruushiyaanka iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada tallaalkaasi oo ay u arkeen 95% inuu yahay mid waxtar badan. waxaa lagu diyaariyey macadka ama institute-ka lagu magacaabo Gamaleya Research Institute oo ku yaala magaalada Moscow, waxayna u arkaan waxtarkiisu inuu yahay mid wanaagsan. maamulayaasha AstraZeneca waxay sheegeen tallaalka Sputnik ee Ruushia iyo koodu inay wax badan isaga mid yihiin oo ay tijaabinayaan isku darkooda iyadoo weliba dhinaca Ruushia lagu bilaabayo dadka da'dooda ay ka weyn tahay 18 tallaalkoo la isku daray in lagu eego kadibna go'aanka kama dambaysta la gaari karayo iyagoo u arkaya labada tallaal oo la isla bahaystaa inay wax weyn ka qabanayaan cudurkan loo caalwaayay adduunka dhibaatada iyo masiibada ku keenay. marka daba la fiiriyo waddanka UK waxa uu ka mid yahay wadamada ogolaaday haddii la fiiriyo Pfizer iyo weliba BioNTech waxa kale oo iyaguna ogolaaday waddanka Canada, waddanka Bahrain iyo Saudi Arabia iyadoo la filayo wadamo kale inay ogolaadaan. AstraZeneca iyo Oxford iyo weliba Sputnik iyo Ruushia labaduba waxay ka dhawaajiyeen tallaalkoodu inuu isku mid yahay laakiin wax badan uu ka duwan yahay tallaalada Pfizer iyo weliba BioNTech oo ay sheegeen in waxtar badan laga arkayo marka labadan tallaal la isku daro oo la eegayo oo markaas natiijada la soo saari doono. labada tallaalba si gaargaar ah waxay u sheegeen in 90% AstraZeneca iyo Oxford uu yahay tallaal aad u wacan. xagga Ruushia iyo Sputnikna waxay sheegeen koodu 95% inuu waxtar weyn oo markaasi leeyahay. UK waxaa ka socda dadaallo xoog leh oo ah dadka in si aad looga eegayo guud ahaanba cudurka dhinaca kalena lagu bilaabo talaalkii talaadadii la soo dhaafay ilaa iminka dadka kala duwan oo 73 isbitaal oo UK ku yaala talaalka cudurka coronavirus uu ka socdo iyadoo uu yahay dalkii koowaad ee adduunka ee talaalka dadkiisa ku bilaabay. 24 saac ugu dambeeyay UK waxaa laga arkay dadka cudurka uu ku dhacay 21,672 ruux. waxaa iyaguna cudurka u dhintay UK guud ahaanba 24 saac la soo dhaafay 424 ruux iyadoo tirada guud ee UK cudurka uga dhimatay maalintuu bilowday ilaa maalinka maantana lagu sheegay 63,506 ruux. marka daba la fiiriyo guud ahaanba adduunyada xaalku ma qumana meelo badan oo reer Yurub iyo reer Latin America laakiin haddana waxa ay qabaan fikir ah in dadaallo xoog leh ay jiraan oo talaaladii qaarkoodna la ogaado kuwana la ogolaanayo iyadoo dhinaca kalena laga muujiyo culays qaabka iyo sida loo daabulayo ama loo rarayo talaalada marka la geynayo guud ahaanba adduunyada dacaladeeda iyo wadamada qaar oo loo arko meelihii lagu kaydin lahaa iyo qabowga la rabay iyo heerkulka inaanu diyaar ahayn. arrimahaasi oo dhani waa caqabado kale oo jira laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa dhooqo midba maraa la siibaa. mar haddii talaalkii la helay ayaa waxaa laga yaabaa in qaabka loo rarayana markaas iyadana farsamadeeda la helo. guud ahaanba adduunyada ilaa iyo 13 wadan oo kamid ah ayaa cudurka coronavirusku dadku uga dhacay 1 milyan ay kor u dhaafeen walow tirooyinku ay aad iyo aad u kala badan yihiin. 7 wadan waxay ku yaalaan dhinaca Yurub oo waxay kala yihiin Russia, Poland, Germany, Italy, Spain, France iyo weliba wadanka UK. laakiin marka la fiiriyo dhinaca Latin America iyo guud ahaanba wadamada la isku yiraahdo Americas waxa waaye Mareykanka, xagga Mexico, xagga Brazil, xagga Argentina iyo xagga Colombia. laakiin waxaa jira wadanka 13aad inaanu ku oolin Yurub iyo Latin America uu yahay wadanka labaad ee ugu tirada badan adduunyada dadka kuna yaala qaaradda Asia oo ah dalka Hindiya. guud ahaan adduunyadu walwal xoog leh ayay ku jirtay sanadka 2020 laakiin ididiilo wacan ayaa muuqda inta aanu dhammaanin sanadka walwalka in wax laga qaban doono Allah awoodal ayaa wax ka qaban kare oo talaalkii la bilaabay meel kana lagu bilaabayo adduunyaduna ay gasho naacaw iyo farxad 2021 iyadoo waliba la sheegay wadamada qaar talaaladu inay dhaafi karaan 2021 oo ay ka sii gudbi karaan marka la fiiriyo qaabka iyo sidoo u gaarayo. laakiin Canada oo kale markaynu soo qaadano oo dalbatay doosas malaayiin waxay sheegeen ilaa bisha September 2021 qof kasta oo Canadian inuu talaalaado. waxaynu haddaba eegi doonaa
xaalka iyo sida xaaladdu ay noqoto iyo tallaalada cudurka coronaviruska iyo bishii December oo lagu jiro 2020 marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leighton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badino nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah